عيني يقول لا يلا عطوبي مركو لي واكو عيارن عاشق وابئ هستاس وحكو كان هس مركاوي واس أركيناي أموردي دي أو اسمه كإما أو اسمه كإما بسم الله الرحمن الرحيم حدنا وحان بلاونينا برنامج كيني أو خيب كأها بوقشدني مقالة برمنغهام أو إن كحق وريسنو ولكن إبراهيم حرسي يعني سفر كيسي وإيو جهدي أو قليي إنه كنت تخصصه سوغانت بنادريغا إيو سوغانت كونفورتا runtii Soomaali badan ayaa ku qadariya Ibrahim juhdiga uu sameeyay wuxuu ka mid yahay dhalinyarada oo dalka UK oo aad loogu qadariyo maxaa yeelay jidka uu qaaday macna wuxuu qaaday waxyaabihii uu jeclaa marka insha Allah asaan ka su'aalo ka weydiinayna Ibrahim ku soo dhawo barnaamijka bal arinkan inaad suugaanta oo koonfurta ama suugaanta banaadiriga aad cilmi baaris ku samayso oo aad u dul gasho yani maxaa kugu dhaliyay macnaa aad baa umadsanta adeer marka hore soo dhawow baan ku leeyahay runtii anigu horta weligay waxaan jeclaa suugaanta iyo taariikhda markaa yara aabbahay wuxuu ina geyn jiray librariga wuxuu nagu dhiirigelin jiray wax akhriska aad yar anigu waxaas anigu 7 jira 6 jira inuu librariga jimco walba nageyn jiray anigu walaalahay oo oran jiray 3 buug 4 buug inaad qaadataan ma faantay habeenkii aan buuga soo qaato habeenkaas ayaan buuga dhameyn jiray jimcihii waxa laga yaabaa 4taas buug 4 maalin ay u qaadane 3 maalmo anigu buug la'aan guriga joogo board baan ahay waanta ma sha Allah caajis ay qabanaayo soo anigu horta weliga waan jeclaa taariikhda iyo suugaanta markii aan soo korayayna waxaan aad u akhrin jiray taariikhda Keltska ama Saxonska ama Vikingska ama Mesopotamia waxay gaartay heeraan is iraado bal horta dadkan oo dhan waad kala baratay taariikhdooda taariikhda Soomaalida ma fahamtay maadaama Soomaali aad tahay taariikhdaada maxay u egtaa soo waxaan bilaabay inaan internetka galo librariga buugaag Soomaaliya ku saabsan aan ka soo qaato kolkaas ay igu dhalatay jacayl weyn aan u qabo dadkayga iyo dalkayga iyo inaan dareemo kalsooni Soomaalinimada inaan kalsooni ku dareemo taasi waa cool markaas waxaan bilaabay inaan slowly dhageysto heesaha Soomaalida oo fahamtay oo ilaa markaa iska jeclaa inkastoo aan hadda iska joojiyay laakiin anigaas aad baan u jeclaa heesaha Soomaalida heesaha Soomaalida aniguna ma aan kala aqoon koonfur waaye irar xamar waaye irar waqooyi waaye iyo geelay weeye iyo faradheer iyo waxa anigu wax kala aqoon laakiin kali waxaan ogaa markaan dhageysanayo heesan waxaan ugu jeclaa Faadumo Qaasi Loole Axmed Naaji Saacad Aamin Camaari awis khamiista gaar koonfurta ilaa amarkii musiga iyo say heeso u qaadayeen iyo dumarka codka duugnida aad baan u jeclaa marka qaadaya heesa soo waxaan bilaabay anigu marka wax dhex galo ilaa aan ka gungaaroono uma dhameyn karo ma faantay soo markaan dhageysanayo heeso waxaan rabaa inaan ogaado cidii tirisay kolkii la tiriyay basida ay ku timi inaan miraha aad u fahmo aan wax noqdo obsess camal ku noqdo soo librariga ilaa marka waxa yaala buugaag Scanson daabacday la yiraahdo diiwaanka heesaha Soomaaliyeed ayna ku qoran maxamed sheekh xasan maamuud buugaagtaas ayaan aad u akhrin jiray waxaan bartay taariikhda heesaha Soomaaliyeed waxaan bartay taariikhda suugaanta Soomaaliyeed laakiin waxa ka maqnaa ilaa amarkii taariikhda heesaha koonfurta aan aad u jeclaa Faadumo Qaasi taariikhdeeda waan waayay Axmed Naaji taariikhdiisa waan waayay waxa waaye abwaaniinta riwaayadaha sanay jiray taariikhdooda Ali Usman Daroog iyo Awisgeedo Nuudiin iyo dadkaas waa way taariikhdooda kolkaas waxa weeyday arinta markaas waxaan isii mar haddaad weyday qof wax ka qoray kolay waa inaad adigu dadka raadisid dadka dhigaayo waday soo waxa weydiin jiray dadka lambarahooda raadin jiray hadda inay xasuustaan uu leeyahay laakiin Faadumo Shaxalay iyo waxa wareystay Faynuus Daahir anigu 16 jir oo wareystay ma sha Allah xilligaas waxaan dhiganayay college ama 6 form kan waxa jiray sanadka koowaad maada la yiraahdo extended project qualification qofka maadadaas qaata waxa way laynagu dhiirigelin jiray maadadaas waxa la yiraahdo hadaad maadadaas qaadataan waa hal year laakiin jaamacadda marka dalbanaysaan
buundooyinka laga rabo jamcada aad ku gasheed hoos aa la dhigaya so talaan if you want to go anigu waxaan rabay inaan xilligaas waxaan rabay dhaqaale inaan galo waxa layga rabay AAB laakiin haddaan EPQ qaato waxa laga dhigaya ABB aa laga dhigaya so kolkaas aan qaatay qofkan waxa la yiri wax aad doonto aad jeceshay waa inaad wax ka soo saartid cilmi baaris ku samaysan iyaguna waxay ku tababarayaan habka cilmi baaris ay kugu tababarayaan anigu waxaan doortay topican aad u jeclaa casriyeynta ciyaaraha hidiya dhaqanka so waxaan rabay inaan connection sameeyo ciyaaraha dhaqameed iyo heesa casriga ah tusaalaha wiglada waxaa ka dhashtay heesaha heelada so anigu focuskayga project uu ahaa ciyaar wadada la yiraahdo koonfur laga sameeyo laga dheelo iyo ciyaarta wiglada iyo ciyaarta vibration la yiraahdo saddexdaas ay focuskayga ahaayeen markii aan hadii la ku roon yahay markii aan baarayo wiglada waxaan arkay dhowr maqaalo intaasoo buugaag intaasoo wareysiyo يعني ما بباهنين إن أقف ورئيسه ويا resources كأيا يبوحن أنت صوب بوجاك بعدين هلا لوي وقرأ جون ويليام جونسون أنجيفسكي بوجاك وقرأي مقالين أو ترى بدن إيوه إحنا هلا يعتلى ذا أريد مقدش لقد دبي ولو ورئيسنا يحكي بالبال إيوه حس شيخ مؤمن إيوه هدي لا كورة يا خديجة عم تلاقي إيوه أن علي سهولة وصف على إيوه ورمي إيوه ويقرأ تاريخ ويقرأ إيوه يارك سافر عليه laakiin hurdadii meel aan ka raadiyo buugaagta maqaalooyinka wareysiyada wax fara ku tirsa waa waay so waxay u qasabtay inaan raadiyo kuwii dheeli jiray Axmed Day Cabdigaashan lambarkiisa la soo diray wuxuu si fiican iga waramay taariikhda hurdadii iyo nin la yiraahdo Yaasin Jay ما شاء الله ووريستي وان لحي توجرنا وان لكن مركا ادو لحي توجرها وعيسيد وويدينيسيد ما تعجبها يعني ومعنى شيء درينكودي معنا ايوه مثلا waxay filanayaan qof weyn inuu weydiiyo ama adoo lixi toban jir ah oo wadankii aan ku dhalan oo inta aan ku dhalatay af Soomaaliga runtii dadku way la yaabaan adoo inta ku dhashay af Soomaaliga ma sha Allah oo heersan markay dareemeen Axmed Axad gaasha marka uu caday iyo fanaaniinta iyo macna aad iyo waxay u qasbanaa inuu shaqtar markaan wacay laga yaabaa hadda xasuusan way 8 sano laga jooga laakiin marka waxay ku leeyahay mar hadaan ay la yarada ma fadhi midda iskilkilinaayo oo waxaan aan dhaxay gashay waa mar walba waadi wareysan karaa so runtii adigu yaabi jiray laakiin xilligaas af Soomaaliga aad uma wacnayn inkastoo hadda weli waan iska jabsadaa laakiin xilligaas ku sii darna maanta af Soomaaliga laakiin waan isbarayo juhdi badan waan keliyay so Axmed Day Cabdigaashan wareysta Yaasin Jay wareysta si fiican bay meerisa ay tiriyaan way fududeeyeen waxay sheegeen heesaha casriga maanta oo inaaxiyada udrila qaaday ugu sameeyay waxa soo daray macneeyeen projectana uu baan ka gaariyo ay baan ku helay darajo fiican baan ku helay projectkaasna wixii fududeeyay inaan jaamacadda aakhirka aan galo alxamdulillah project markaan dhameeyay ayaan waxyaabo kala galay shaqaan galay jaamacadda toos u galay shaqaan galay yarkayga labaad markaan dhameeyay ayaan shaqo toos u galay dhowr sano shaqaynayay laakiin weli maskaxdayda mar walba waxa ku jiray suugaanta banaadiriga anigu hadda waxaad arkaysaa tusaale ahaan dadka markay ka hadlayaan fankii suugaanta banaadiriga waxay ku koobaan shactiro iyo majaajiro iyo haddii la ku yahay heesaha qolka ciyaarka waxaan oo dhan waxay bilaabeen waa afartamayadii laakiin fakka iskuulaadka banaadiriga waa ka weynahay waana ka facadinaya waa qarniyaal laga hadlayaa anigu haddaa maanta anigu wada awoodaashayga ay jiraan ayooyinkaygana way gabi jiraan waxaa la tuwan jiraa haanta markaan buugaagta akhriyo ee u qoray isla marka waxaan fahmi karaa dhaqan suugaaneedka geelayda maxay maaso ku qiimeeyaan sidee bay u qiimeeyaan sidee bay u faafta maasadu maasooyinka kala duwan sidee bay u kala darajaysan yani darajooyinka kala duwan gabayga baa ugu sarreeya ama safada iyo geeraarka ku xiga haddana waxaa jira sooleejida iyo ciyaarajida waxaasoo dhan jira waxaasoo dhan dhaqanka surrounds ma faantay suugaantaasoo dhanna wax badan baa ka baranaysa ma faantay laakiin dhaqanka koonfurta wax badan waa ka waayay aniguna waxaan rabaa inaan fahmo heesaan aan dhageysanayo iyo halkii ay ka soo farcaneen inaan ka gaaraan rabaa so waxaan bilaabay inaan wareysto Shariif Jad aan wareystay
ilaa haddana waa wareystaa nuuraani waa wareystay caasha karaama waa wareystay awbuna waa wareystay maki xaaji banaadir naana cabdulaahi haddii la kura waxaan wareystay reer mugaani dhow qof aan ka wareystay dad badan baan wareystay oo aan hadda axmedi cabdigaashan intaasoo jeer waan wareystay saan hore uu yiri shaxlay faynuus sheekh daahir yacni lama tirin karo dadka aan wareystay waxaan ururiyay intaasoo miisaan weliba toddobaadsameeyadii waxaa jira laba nin gaariya iyo caraale la yidhaahdo oo xeerarkii miisaanka maasada soo saaray hal miisaan heer koonfur mooye wixii oo dhan waxay ahaayeen miisaamanka badaha geelayda ay wax ka tiriyaan shirib hal nooc oo shiriba oo heer koonfur ay leeyihiin mooye wixii oo dhan waqooyi ay ahayd so aniguna waxaan isku dayay inaan miisaanka xeerarka miisaanka heer koonfurta aan soo saaro waxaa jira bado aad u tiri waayo dadka waxayba yidhaahdaan heer koonfur miisaan kuma maaso maasooyinkooda miisaan kuma fagana inta badan maqlaysaan waana been barjiig bay leeyihiin rambul bay leeyihiin shirib bay leeyihiin sarcadheeray leeyihiin walwaleeyay leeyihiin saylay leeyihiin waxay leeyihiin ciidaasay ka badan tahay ma fahamtay hadaa wax idinka maqashiyo suugaanta heer koonfurta waxaa jira bad la yidhahdo marjiibku waa haddii la waa badaha ay aad u jecleen musicna lama saaro laba aanoo tiriyaa waana maasogoleed waa xaajada iyo kaftanka iyo xifaaltanka iyo goomaarka weeye amaanta weye wuxuu galayaa booska jiiftada ayuu galayaa waxaa jira nin reer xamar ah markii magaalada xamar lagu soo yara batay ay dadkan geelayda ay bilaabeen inay kalluunka bartaan ayuu arkay iyagoo kalluunka aan culan jiray ay cunayaan kalluunka aan la kalaankali jiray ay kalaankalayaan kalluunka aan la keydin jiray la keydinayo waxaas ayuu arkay kolkaas wuxuu yiri isagoo marjiibaya wuxuu yiri kaxan kayd magalaayo waa la kasaa wax ma kaafiyo koombirow kitaab meesheed ka soo akhristeen kinkoy la kalaankalayo waxaa jira buraambur gabdhaha banaadiriga waxay leeyihiin bad la yidhahdo buraambur iyagoo u gaara buraamburkan geelayda ma aha waa nooc gaara waxay leeyihiin geed waxaan u aqaan geed miro ku yaalo lagu rahaayo ummadiis maraangooyo yaa ii gargaara ay leeyihiin fiir murtida aada dasgudbal eeg waxay leeyihiin xalay baddaan ka imid kana waa xifaaltan yar xalay baddaan ka imid barax layma soo labin bun layma dubin baadiya bariid mucto buunshaa la siiyaa waxay leeyihiin allah mustacaan waxay leeyihiin furdo adaa fadhida maayada faniinkeed adaa fuushaa أو فقي فذير معنا وفاتح هذا نوعها إلى وعروس عليه أو قبو قواي ما قبو قلقالة قبيلة السماي هذه إيجار كيسا قليسوس كباجا مركي أمانة يعني ما فاتني قرآن واحد شرا ساعة ديرات شرا يعمى أغاني ملايقو يومه محاض ويش ما يلي راهو ما تيجي كليه صفو نبوا سفكيس أنا سفكيس سرع ديرو باي مركي ليه أوابك أنوابك تعال ما بكتو اسمه باني صاير مركي ليه يوم هذا أحد ليه لكن محمد خلي بنادري waxay israaciyaan arrimo badbadan macnaa yani maansooyinkoodii yani kudba inay mid ka soo qaataan ayay ka soo saaraan mid cusub macnaa taasna waxay keenaysaa inay soo saaraan macnaa hees qurux badan ama geeraar qurux badan ama maadaama ay ka soo deensadeen meelo kala duwan marka sidee u aragtaa macnaa horta waa wixii aan aad waxay cajabiye markaan bilaabay inaan darso sugaanta banaadiriga abwaabka banaadiriga wuxuu diidan yahay inuu heestiisa ay u ekaato hees kale taas waxay sabaysaa inuu tago tuulooyin fogfog ee ka duugo heeso aan hore magaalada laga maqlin intuu magaalada keenana hees kale ku dhiso waxa la aadays jilib goosh waxa la tagi jiray marka la tagi meelooyin aan la tagi jiray awisgeedo iyo doctoraafi intay jeri digsi ay keenaan ay ku duubi jireen heesaas hore hees hawleejo adan waxaa jira tusaale ahaan heestan caanka ee nuuraani uu sameeyey aynaygu ciilayaa la caatoobay markuu leeyahay waa ku cayaareen caashaq waa ba'een heestaas wuxuu ku keenay hees markaawi ah waa is arkaynaaye amooradaydiye awo ismaanka isna wuxuu ka dhigay waa ku cayaareen caashaq waa ba'een waxaa jiray heestan uu maki xaaji banaadir sameeyey
aalida kuulanay la yiraahdo oo markuu leeyahay ama waxa jira heeso aad u tir badan waa jira waxaa jira heeso shirbi hore laga sameeyay saala markaa wara jiridoone wishkaleeyahay wax laga shirib hore cusbaan la yiraahdo shirif jeeg awowgiisa laga keenay shiribkiisa marka ingiriiska ay rabeen inay xaar qabsadaan Soomaalida qabsadaan ayuu intuu shirib wuxuu yiri wara jiridoone wishkaleeyahay waa bambadii waa doomankii ma faad ayuu saadaalinaya heesa laga dhaxmaday cabdigaashana heeskii baan u maleeyaa baajay heestii inay iska heestaas la haddana caashiqa aan ku soo noqonaay waxaa mar aad jiray su'aal aan ku weydiiyey oo iga jawaabtay oo aan ka yaabay dhanka caashiqa oo sheeko waxaa jirtay oo adigana og tahay in ay jirtay gabar oo Eritrean ah oo xamweyne degan oo aad u qurux badan oo cayaalka xaafadda oo dhanna ay rabeen oo jeclaayeen laakiin labada qof ugu tartan badnaa waxay ahaayeen laayac iyo ikarsheekh marka laayac wuxuu ahaa nin jiraa ah oo riwaayadaha jiro ikarsheekhna wuxuu ahaa nin iska dhalinyaro ah oo qurux badan marka labadoodii gabadha aad u jeclaaday aan maqlay marka gabadhii ilaahay amarkiisa oo laayacay raacday oo laayaca guursaday marka aweysgeedo ayaa wuxuu macnaa ayaa laashin u sameeyey oo yiri amora ma jira manas ikarsheekh ooy afka ka sheeg aan faqaad ilaasho macnaa amora ma jiro marka ninkan oo dhan oo saan u qurux badan hadii ooyay macnaa amora ma jiro oo ka wada marka runtiina dadka oo sheegay waxay leeyihiin labadoodiba waa awoodeen laakiin laayac xoogaa kalsooni muujiye maadaama laayac uu jilaa yahay haddana habeenka waxay jecleen ninka isku kalsoon oo kalsoonida iyo ikar laakiin aad uu gabadha u jeclaa gabadhada markii caashiqa uu kaa bato oo aragto adoo dhanaa ilaalaya mahadmi kartid mugta marka taasaa jira laakiin jawaabtaas laayac waa la xumaataa yiri wuxuu tagay qof kale marka aniga waa waayo ada ii sheegtay marka wuxuu u tagay yiri marka kaasaan rabay inaa ii dhameystirtid horta ikarsheekh horta aweysgeedo aad wuxuu yiri arintaas jirta qisada ugu warramay wuxuu yiri waxaan rabaa inaan maasi ii tiriso ikarsheekh wuxuu yiri marka saatiri amora ma jira ikarsheekh manas aweysgeedo sare wuxuu yiri ويزجد أيوة تقولين جرا ويزجد وحنا هالك أساس فنك بنادر عصري إسقى أساس مسرح بنادر إسقى أساس سوقاتي سوا وانت قفقة مرتدي إياه تضغط جنوب بنتي إلى نحس جناك ورابيو أبوان وين وها وحيرها مكاس أمور ما ترى ikarsheekh مناس أوي أفكك الشاك أفقاك بيجله واي كل كذا يا هذا يوقع مع الميل لغلاس باريس wuxuu yiri nin la oran jiray laashin all ayuu tagay wuxuu yiri maasadaas ayaa suuqa gashay waxa raba wax jawaab inaad tirisay laashin all markaas wuxuu yiri amor waa la arkaa igaarna loo ooyo ogolnima loo ay is'aala leeyahay maantay hadii ay gabadha oo dareenkeedii u qaadan yani waa xaq leedahay inay lama khasbi karo dareenkeedii ku guuleysan waaya am saas waa soo waxa jira geeraaro badan maasooyin badan aynkaas oo kale oo aad u cajiib oo islaafsan oo aan la qorin oo aan la duubin badankoodna aan la duubin especially maasooyin kala duubin jiray oo even laakiin waxa la arkaya geeraaradana marjiib kan wuxuu markii riwaayad banaadir la dhigayo waxa la adeegsan jiray marjiib iyo geeraar markii ay hadlaayaan waayo ma fahamtay soo hadal iska caadiya way ku yaraan riwaayadaha waxa aad la adeegsan jiray marjiib iyo geeraar marjiib kamid ah marjiiba riwaayadaha caanka waxa kamid ah riwaayadii talxumo toma badiyo aweysgeedo sameeyay marjiiba ka buuxiyay geeraar waxa kamid ah foolkii ku fiican falaar in la soo gamo feeraha loo masaaro fiid soo baxayo fiyoda qowow basneeyam ila fiicno waxa kale gabaraatay oo wax soo garatay gacan loo galay guursigeedii galadaada anoo aan ku gado qodmi ii kasa guulahay heesna ma ah waa hadal ay isdhaafsanayeen jilaaga atrishada iyo actorka isdhaafsanayeen waxa jira markuu leeyahay allah musta'aan riwaayad waxa kale jira aad u caan baxay basal waa awgiisa badan beedka mini luhaayo beecaad heshayo bishaaro ah bixi baaska hadiis ku hay waxa jira geeraarna waxa la yiraahdo
geeraarna waa ay cajabiyo af walbo ay Soomaali ku hadasho ama lahjad walba ay ku hadasho geeraar waa isla geeraarka isla miisaanka waxa jira shariifje geeraarka wallahi cidi tirsada kama laakiin riwaayadii axdi aan la ogeyn axdi iyo ari aan la ogeyn ay ku jirtay markay adriishada ay leedahay markay ay adriishada ay leedahay Allah musta'an majnuun ma tahay hooy majnuun ma tahay hooy murunkaaga badnaa munni baxma ismood miisaami warkaaga martida joogta xaq dhowr martida joogta xaq dhowr martida joogta xaq dhowr markaas waxay leedahay martida joogta xaq dhowr waxay leedahay mukulaal madax dooni mogaalay cuntaay maalinaan maanta ahayd armad mool ku dhacday ما شاء الله لكن waxaa cajiib ah in runtii hadda dadkii waxay arkayaan mirihii oo juhdigaaga iyo cilmi baaristaada macnaa inay miro dhal sameeyeen oo macnaa asxaabtaadii iyo laakiin markii hore intii aad bilaabaysay cilmi baaristaada iyo juhdigaaga asxaabtaadii iyo qaraabadii sidee ku arkayeen waxay macnaa ma qof waalan bay ku arkayeen dadku ila yaabeen dadku ila yaabi jireen wiilka dhalinyarada ahaa ee waxa ku waashnay wuxuu ahaa maanta dadku aad bay la yaabi jireen dadna qaar waxay la yaabi jireen suugaanta dad wali waxa jira dad xoraan suugaanta gashay salaan carabay iyo sayidkii suugaantaas ma dhaxay gashay waxa suugaana dad qaar gabaxsaada dadka ay oran jireen laakiin anigu waxaan arkay wada dhowr shay waxaan arkay suugaana aad u jeclahay waxaan arkay suugaan wax badan lagu qoro oo baahan wax lagu qoro waayo even waxay ku farsan maadaama waqti ay nin Abdullah Mansour مباري وين ما شاء الله وحو كقري برامبركا isagoo buu qoray Buraanburka wuxuu inkastoo isagu fiicaya waa yihiin comfort wax badan buu wax ka qoray laakiin wuxuu yiri markuu eegay Buraanburka miisaanka wuxuu yiri Buraanburku waxay tahay bad cusub laakiin anigu markaan galay daraasad markaan bilaabay darso suugaan bal waxaan bilaabay waxaan haystaa codad heesatun abaaya yejido iyo wax badan baan hayaa ma fahanteen soo markaan dhigaysanay heesatid waxa jira bad la yiraahdo Buraanbur iyagu ay leeyihiin raxmaka waxay bad Buraanbur la yiraahdo geeleydana waxay leeyihiin bad Buraanbur la yiraahdo waana aslaan magac badawada waa Buraanbur badaas waxay ku kala duwan miisaan laakiin munaasib bay isku soo waxay tusaysaa badaas inay tahay mid da'weyn badaas inay da'weyn tahay laakiin haddaad hal meel ku koobtid cilmi-baaristaada in lahjadayaashan oo dhan hal meel bay ka soo wada faracmeen soo haddaad cilmi-baaristaada hal meel ku koobatid hal laan ku koobatid dee waxaas oo dhan wax badan aad ku dhaafaya ee aad ku fahmi karaysay taariikhda af Soomaaliga iyo taariikhda maasada Soomaaliga ma fahamtay soo cilmi-baaristu waa muhiim qofka raba inuu fahmo miisaanka maasada Soomaaliga qofka raba inuu fahmo af Soomaaliga wuxuu yahay qofka raba inuu fahmo taariikhda afka Soomaaliga waa inuu lahjadaha oo dhan wax ka fahmo laakiin waxa jira maadaama suugaan badan akhrineysay oo aad ku guda jirtay inay taas u horseeday in adigaba aad gabay adiga khaas ku ah inaad tiriso oo luqadda Ingiriiska iyo mid luqadda Soomaaliga tan igu yaabka badneed waxay ahayd markii aan shirka Istanbul aan ka qayb galnay oo aad tirisay jawaabtii oo silsiladiisii leyd ahayd si fiican oo dadkii oo dhan oo ay wada yaabeen oo macnaa runtii yani jawaabtaas aad ka bixisay jawaab oo ay macnaa qofkii hore tiriyay uu sugayo ahaa laakiin dadka ma filanaynin wiil dhalinyaro ah oo ku koray qurbaha oo aan Soomaali ku dhalan oo dadka ay ku dhahaan dadka qurbaha ku dhashay af Soomaaliga si fiican uma hadlaan macnaa wiil oo saas oo kale ah inuu tiriyo gabay oo jawaab u noqonaya silsiladaas siinleyda marka bal xoogaa yar mano ifin kartaa macnaa jawaabtaas aad ka bixisay iyo sidee kugu dhalatay iyo xoogaa yar oo meeris yar oo kuwa aad tirisay ah inaad noo sheegto maasadaas anigu waxaan tiriyaa anigu goor aan waxa la iga dalbaday inaan maaso af Soomaali ah af Ingiriis ku rabo xilligaas waxaan aad u jeclaa maaso ay tirisay Caasha Jaamac Diiriye oo ay gabay ay ku lahayd silsilada Siinley ayaan aad u jeclaa oo dhageysanayay ayaa Maxamuud ayaan Cashuno ay iga dalbatay inaan turjumo maaso ay gabay tirisay oo tiri waxa soo loo baahan yahay la fahamtay soo taa gabaygaas aan doortay marka aad gabay turjumaysa waa inaad contextkiisa aad u fahamtay sababta loo tiriyay
كلمة أنا أرى وتوجد وأنا تفهمت سو توجوات كأمور مد بروح بدن context سوى طلوع تري حلي قال تري أبوان كيس سوغان أبوان كتري سوغان تو ذكر أنا آخر ست آيات مهمة مركز ترجمات بلاغيس so وحي يخص أنا ودراسة سلسلة السيلين إلى وجواب كوسو عند السلسلة ده waxaan dhageystay hadraawi gabi maasidiisa markuu waan soo socdaa kawda waxna waan sida laba dheh saxalay xafiiba samriya waliga ayaa cabdi aadan iyo cabdi qays jawaabtiisa iyo xaaji aadan jawaabtiisa iyo axsan baan bidda jawaab axsan dhanaa bilaabeen dhageysto markaan dhageystay ee aan turjumay maasida la daabacay ayaan islaha ayaa wax maskaxdayda ku jira meeris oo axsan salabaan bidda kula maasidaas oo wuxuu leeyahay saadam maxay noqon waxaan isaabal macna mustaqbalka sidee macna hadda sidaana wax oranay bal mustaqbalka sidee noqon doonta anigu mustaqbalkii jooga ee saadam bidii jooga ayaa rabay inaan jawaab ma fahamtay bixiyo markaas ayaan isku dayay inaan tiriyo waxay ay runtii maasada labaad aan tiriyo oran karo waxay ay maaso يعني بس الناس اللي وصلني أو تطلع ما فهمت تطلع أمال لقى تريكو ما صدق إرتاس سببنا ولاده هاي لكن هذا نحرك هو بيت قلت له وأنا كيان وجه على وأنا هو يدي بعض وجه على بكسي وتراد بني وصل على البيت ما شاء الله ما كنا خط تفصيل صاحبك اسمان اوكي oo jaamac isla jaamad been hadda oo waxaynu ay daddood waxaynu welinahay daddood wadaaga saaxiiba maantay daddow mar aan isla doodaynay doodo ku saabsan diinta iyo siyaasadda waxyaabahaas ayaa especially beedka ugu dambeeyay ma faatay saameyn way ku yeeshay waxaan isma wada ismaano nin sunnaha ku dhaatiyo qof salafiya baan ahay oo salugsan waayaha safarkaygu waa meel sababtiisu waa xeel saldhigiisu waa nabad Soomaalo jecelo tawxiidku soo dhiyo oo yahay sidii saf kaliya ku wada jira oo wada sokeeya sahankeedii baan ahay ma sha Allah ma sida nuxurkeeda waa sax macna Soomaaliya oo qulubta isku furtay oo ay diinta mideysay oo marka oo macna in ma sha Allah maalintaas oo kulli joogay dadkii oo dhan aad yani mid xataa wuxuu dhahay waxa isoo galay yani aniga oo dhan waxa dareemo dhahay macna ilaaha ku dooro hadda waxa soo wada buug ku yani ku ururusay wixii bal buugga nuxurkiisa iyo macna buuggu waa buug ku saabsan suugaanta banaadiriga miisaanka maasida banaadiriga ayuu ku saabsan yahay waa 7 sano cilmi baaris weeye waa dadka waan ku tiriyay dadka aan wareystay ciidaas ay ka badan yihiin oo marar badan ma ka xajib naadir 4 sano ku dhawaada wareystay ma sha Allah Shariif Jack sidoo kale caash karaama dhowr sano wareystay dadkan ma ahayn hal wareysi ka xajib laga yaabo inaad 10 saacadood wareysay aan islaamay ka badan runtii waxana bilaabay wali xitma jira waa buugga wuxuu ku bilaabay waa EPQ gaas aan sameeyay yaa rabaa xitma jira haddana فانت لبعتي أفضل صناعة سبتم كانوا قريب الشرع إن شاء الله دلائم صوبوك وسابسي هاي نخلص مات بنادري كلية معها إن هذا ميزان كان بدل ميزان كي سواك بدل ميزان كي سواك واحد ربنا هذا بوسكا أي بدناس ما فهمتي برشة كجت شرطة ما فهمتي سيدا بالوقي ما إدين باترسا halkee baa laga tiriyaa waxa jira salahan marjiibka waxa la tiriyaa raxmad kan tiriyaa shib horta shibaalooyinka oo dhan waa laga tiriyaa salahan quraanka laakiin wuxuu u gaar yahay raxmadka waxa jira salahan shirb la yiraahdo shirb nooc shirb oo raxmadku u gaar laakiin waxa jira shirbiyo afwooyo u gaara shirbiyo la isnaafsaday ma faanto waxyaabo badan saasa jira waxa soo inaan kala macneeyo sida maasooyinka ay u faafan jiraan sida ay hadii la ku roon yahay sida ay badaha ma faantay sida badaha ma faanto u faafi jiraan waxa soo dhan inaan sheego
aswal inaan taariikhaha abwaaniinta banaadiriga oo ruux dheer aan galay ما شاء الله waxaasoo dhan ay buugga ma fahatay taabanaya insha allah إن شاء الله waxaan rajaynaynaa إن شاء الله buuggaas inuu hanti u noqon doono insha allah dhalinyarada oo raadinaya iyo inuu noqon doono boondadii isku xiri lahayd suugaanta miyiga iyo suugaanta iyo macnaa magaalada iyo banaadirigaba inuu noqdo insha allah ilaahayna aduu ku soo xilsaaray ilaahay waxa waaye waxaan ilaahay umurtiisa waaye inuu qof aan ku dhalan Soomaaliya oo macnaa oo qurbaha ku dhashay oo inuu dhiibo mas'uuliyaddan oo macnaa oo haddana si fiican oo cilmiyeysan oo u soo saaro marka insha allahu tacaala adigana mirihiisa waa aragtay dadaalkaagii mirihiisu dhalay markii la joogo shirarka waa aragtay sidii loo qadariyay inkastoo saaxiibkii shirarka la tago adaas miiska hore lagu fadhiisiyaa macnaa waxaana lagu fadhiisiyaa macnaa waxaa qaaday jid cadde oo aan dad badan qaadin marka waxaan ku rajaynaa guul hadduu ilaahay idhaahdo dadaalkaadana ka sii wad suugaanta sideedaba gabayada waxa waaye ahmiyad weyn ay leeyihiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna la bayaanu la sihr yani oraahdu waa sihr ninka gabayga markuu maqlo macnaa asagoo dhan ay macnaa taabanaysaa waa gabay waa aragtay ama nabaday keenaysaa ama duulaanay qofka marka waxaan ku rajeynaa insha allah guul adigana mustaqbalkaaga ka waran maxaa rajeynay ma hore u sii waday mise waa mustaqbalka horta waxaan ka shaqeeyaa dhowr project aan isla wadaa markii laga hadlaayo buugaagta waxaan rabaa inaan qoro buug kale cabdiqaadir nuuraani taariikhdiisa iyo suugaantiisa isagaa mafata wii fasaxay inaan buugaas ka qoro insha allah taasaan rabaa markaan buuggan soo saaro inaan hawshaada guda galo waxaan kala rabaa inaan abwaaniin kale ayaa jira oo aan la hadlay oo insha allah mustaqbalka marba inaan sheego waayo waa mustaqbalka fog weeye laakiin dhowr abwaaniin ayaan ku tala jiraa inaan buugaagtooda suugaantooda taariikhahooda inaan mafanta ku ururiyo iba riwaayad ayaa jira rabaa inaan buuga laga dhigo waxaana jira 2 organization oo aan kamid ahay asaasayaashooda oo mid waxa la yiraahdaa gobanimo oo ku saabsan mafaatay dalka iyo horumartiisa aniga iyo dhowr qofaan dabindiid Yusuf Mustafa Umar Rahma Ubax Ayub Jaamac iyo Ahmed Xasan yani waa Ibrahim Xirsiya lixdayna waaye waxaan rabnaa inaan soo saarno waxaan soo saarnaa journal sanadla ah haddana waxaan ku jirnaa program kale inaan sameeyno iyo buug la yiraahdo koor waa aniga Abdulaziz Faarax إذا رشيد يا عاشنور قال يرادو أفرتين واي أو وعو كسابسي ياي كيدنتا نغن كيهدا سوماليات هذي نقطة أجب هذي نقطة ماسو هذي واحد واحد ما فهمتي أركايف واي كور على يرادو كور أركايف على دا already waxaan sameeyay exhibition Toronto lagu qabtay sanadka hore sanadkan exhibition cusub aan London ku qaban doonaa hadii la idmo and so waxyaaban ka shaqeeyo intaas weeye مع السنة إلى خير قصية وحنا كاي ما جعلنا سيدا نومر تجلس زي مقالة برمنغهام أنا جانا فرحت وين إنه تحي دعوة ديال كسول هذا وبرنامج كيد المرو ورئيسي إبراهيم حرسي إبراهيم بنادري بابور بسر كي سوال برتي بيه سبنزين نواي بربركي نبوكور بنور بدي صوي بعر صوبري بونا سيرا ذكرنا أغنية حق عوض قوبع يقول لك جرك جنة جنس برتي جنان برتي جركينا को जाना दुनिया नी कोई हमारा जर का जन्ना जनेस बरतई जनान बरतई जरकीना को जाना दुनिया नी कोई हमारा
baabuur basarkiisa waa la bartay biyihiisa bansiina waaye barbarkiina bukoor banuur badisoy bocor soo bari boonasera jarka janna janes baratay jannaan baratay jarkiina kujana duniyaani koy hamaara. الله يغفر له ويرحمه. عود قبة كانت هذه من أشهر أغانيه يعني.